Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabta meel walbaad joogtaan kuna soo dhawaada janalka maanta. Magacaygu waa Maxamed Nabiil. Maalin walba waxaa laga yaabaa inaan wadooyinka kula kulanno dad masaakiin ah oo u baahan saacidaad. Aad ayaynu u yaryihiin dadka masaakiinta saacida. Dhammaan dadka tuugsanayana kama ahan shaqo oo waxaa laga yaabaa inay ku dhex jiraan dad u baahan saacidaad dhab ah. Haddaba qisada maanta aan idiin soo gudbinayo waxay ku saabsan tahay haweeneyda lagu magacaabo Ginger's Browse oo sameysay wax dadka intooda badan ay ka caajiseen in ay sameeyaan. haweeneydan waxay ku nooleed dalka Mareykanka, Texas. Aad ayaynu u jeceshahay dadka masaakiinta inay saacido. Waxay waddo ku aragtay dhinaceeda nin fadhiya maalin walba, booska uu fadhiyana aan bedeleen oo meel kale aan fariisanayn. Arrinta la yaab ku sii noqotana waxay ahayd ninkan kama uusan mid ahayn dadka tuugsada oo kaligiis ayaa meesha iska fadhiya, cidna wax ma weydiisanayo. Halkaasna waxa uu fadhiyay sanadooyin. Dadka waddada maraya ayaa inta ka naxaan ay cunto iyo wax siin jireen. Sidaas ayuuna ku noolaa. Xilli uu dhammaanayay waqtiga kuleelaha, bilaabanayana xilliga barafka, haweeneydan way u baqday ninkan meesha fadhiya. Mas'uuliyad ayayna iska saartay. Waxayna istiri ninkan bal sidee ugu noolaan doonaa waddada xilliga barafka. Aad ayayna uga naxday. 2016 haweeneydan waxa ay go'aansatay in aysan ninkan kor ka fiirsan oo ay u tagto xaaladiisana wareysato. Waa ay soo baxday markii uu maatana waa ay la sheekaysatay ilaa markii dambe ay ogaatay qisadiisa oo aad u xanuujisay. Waxay ogaatay haweeneyda intii ay la sheekaysanaysay ninkan in uu jiro 32 sano, laguna magacaabo Victor. wuxuuna u sheegay inuu ka cabanayo xanuun dhanka maskaxda ah iyo nafsi ahaan. Intii ay la sheekaysanaysana qalbigiisa ayuu u furay, wax walba oo noloshiisa ku saabsan ayuuna u sheegay. Waxayna ogaatay haweeneyda in ninkan uu ka cabanayo xanuunka dhanka maskaxda ah, sidaana ay uga tagtay hooyadii. 3 sano ka hor hooyadiis ay isla socdeen, waddada ayay marayeen, kadib hooyadii waxay ku dhaxday halkaan fariiso, waan kuu soo laabanayaa, oo ma aysan soo laaban. Isagiina halkaa ayuu iska fadhiyay oo uu ku sugayay hooyadii. Dadka waddada maraya ayaana wax siinayay, sidaas ayuuna ku noolaa. Wuxuuna rajeynayay inay maalin u soo laaban doonto, sida ayuuna meeshii ay uga tagtay u fadhiyay. Markii ay qisadiisa maqashay, aad ay ula murugootay, waxayna go'aansatay inay caawiso oo ay wax u qabato, maadaama uu halkaan iska fadhiyo, sugayana hooyadiis, kana mid ahayn dadka tuugsada ee waddada u fadhiya inay lacag helaan. Waqtiga wixii ka dambeeyay, maalin walba ayay soo booqan jirtay, una imaan jirtay iyadoo u keenaysa cunto, lana sheekaysanaysa si ay sheekooyin badan uga sii ogaato. Markii dambena waxay ku qancisay in uu gurigeeda u raaco. Waxayna kula dadaashay inay dhakhtar geyso, ilaa markii dambe uu ka soo ronaaday xaaladihii caafimaad darro ee haystay ee dhanka maskaxda ah. Kadib cunto karinta ayay si fiican u sii bartay. Maqaayad iyada iyo ninkeeda ay lahaayeen ayay shaqo ka siisay, waxayna kaga dhigtay cunto kariye. Waqti badan kadib mar ay xaaladiisa caafimaad soo wanaagsanaatay, noqdana nin shaqaysanaya, waxay u samaysay Facebook page ah, halkaas ayayna ku soo qortay sheekadiisa. Dad aad u fara badan ayaana akhriyay sheekadiisa oo ka helay. Waxayna go'aansadeen inay taageeraan iyada iyo Victor. Kadibna waxyaabo kala duwan ayay ku caawiyeen. Dad ayaa waxay ku caawiyeen lacag badan si uu u sii wato noloshiisa. Kadib Victor waxa uu dareemay in ay jiraan dad jecel, ka warhaya, jecelna horumarkiisa. Waxa uu noqday qof caaqil ah oo haysta meel uu ku hoydo iyo shaqo fiican, caafimaad wanaagsanna helaya. Laakiin arrimahaas oo dhan ma aysan hilmaansiin jacaylka uu qabo hooyadii. Mar walba uu nolosha horumar ka gaaro, waxa uu sii xiisayay hooyadii. Maalin maalmaha ka mid ah, isagoo iska shaqaysanaya, waxa la soo xiriiray adeerkii oo akhriyay qisadiisa. Kadibna waxa uu ku caawiyay in uu la raadiyo hooyadii. Ugu dambeyntiina waa uu la kulansiiyay hooyadii. haweeneydan waxa ay samaysay arrin geesnimo leh, sababtoo ah waxay caawisay ninkan iyadoon aqoon u lahayn wax uu yahay aysan ogeyn. Waddada ayuu iska fadhiyay, dadkoo dhanna way iska agmarayeen oo waxba ma aysan qaban. Kana mid ma ahayn dadka tuugsada ee dadka lacagta weydiista. Ilaa markii dambe haweeneydan arrintan geesnimada leh ay samaysay oo ay isku dayday inay noloshiisa bedesho kadib markii ay qisadiisa dhageysatay. Waxaa jira dad masaakiin ah oo maalin walba waddooyinka jooga una baahan saacidaad. Marka haddii aad aragtana, niyadaada u wanaaji, iskana saacid haddii aad awooddo. waad ku mahadsantahay daawashada. Haddii aad ku cusub tahay channelka maanta, subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. Hana hilmaamin inaad la wadaagto asxaabtaada. Mahadsanidin.